salaamullaahi calaykum asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada youtube janaalkeena walaashii raxmad dayman. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo janaalka sabskraib noo saar. haddii aad horey noola joogtana waan kaaga mahadcelinayaa. maanta waxaan idinla wadaagi doonaa hadduu allah raali ka noqdo cuntooyin kaa caawinaya in ay badiyaan caanaha hooyada. maxaa kaa caawin kara caanaha naaska in ay bataan? ugu horeyn fruutiska kaa caawin karo in caanaha naaska ay bataan waxaa ugu horeeyo afakaadhada. maalintii haddaad isticmaasho xabad afakaadho waxaad dareemi doontaa isbedel weyn oo dhanka caanaha ah. afakaadhada waxaa ku jiro fitamiino dhammaystiran, borotiino iyo nafaqooyin dhammaystiran, kuwaas oo hooyada ka caawinaya soo saarista caano badan. sidoo kale afakaadhada waxay kaa caawinaysaa yareynta miisaankaaga. xilliga umusha hooyooyinka waxaa kora miisaan badan. afakaadhada waxay kaa caawinaysaa in ay yareyso, sidoo kalena ay jarto caloosha. afakaadhada waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan oo hooyada caawiya in ay soo saarto caano badan. qodobka labaad waxa ay tahay cabista biyaha caadiga ah. biyaha caadiga oo badan ugu yaraan 2 liitar maalintii hooyada waxay ka caawinaysaa soo saarista caano ku filan. biyaha sidaynu ognahay jirkeena wuxuu ka kooban yahay 70% biyo. hooyada markasta oo ay biyo badan cabto way caawinaysaa. qodobka saddexaad ee ku caawin kara waxay tahay qudaarta cagaaran sida ansalaatada, koostada iyo qudaar walba oo cagaaran. inaad isticmaasho ayadana way ku caawinaysaa in ay badiyaan caanaha hooyada. cuntooyinka kale ee ku caawin kara waxaa ka mid ah cuntooyinka sida jabaatiga ama sabaayada. waxay ka mid yihiin waxyaabaha kordhiya ama badiya caanaha hooyada. sidoo kale cananaaska waxa uu ka mid yahay fruutiska badiya caanaha hooyada. xilliga ay uurka leedahay ma isticmaali karto, laakiin markii ay dhasho hooyada waa normal oo way isticmaali kartaa. waxaa kaloo hooyada caawin kara qaraha. qaraha waxa uu ka mid yahay fruutis inta badan ka samaysan biyo. hooyada hadday isticmaasho oo zaid ay u badsato isbedel ayay ka dareemi doontaa dhanka caanaha. sidoo kale babaayga cagaaran, babaayga marka uu si fiican u bislaanin iyadana waxa uu ka mid yahay fruutiska badiya caanaha hooyada. sidoo kale mooska waxaa ku jira potassium iyo nafaqooyin kale. iyadana hooyada hadday maalin walba ay joogtayso inay isticmaasho way caawinaysaa. xulbada waxa ay ka mid tahay iyadana waxyaabaha kordhiya caanaha naaska, oo hooyada hadday ku darsato wixii markaa ay cabayso way caawinaysaa iyadana oo way kordhinaysaa caanaha. ugu dambeyn waxaan kula wadaagayaa talooyin kaa caawinaya kordhinta caanaha marka laga soo tago cuntooyinka aad isticmaalayso oo aad isbedel ku samayso. waxaa jira cuntooyin ay hooyooyinka aad u isticmaalaan balse aan caawinin. waxaa ka mid ah shaaxa oo kale. shaaxa inta badan wuxuu kaa soo saarayaa calool weyn, caano badanna ma keenayo. haddaad meeshaad shaaxa ka cabaysa aad ku bedelato biyo caadi oo cad, sidoo kalena aad isticmaasho afakaadhada waa number 1 waxyaabaha caanaha hooyada kordhiya. waxa ugu horeeya ayay ka mid tahay. way ku caawinaysaa inaad ku bedelato booskii shaaxa. waxa ay inta badan dhakhaatiirta ku taliyaan hooyada markasta oo ay nasiino ay hesho oo ay maskax ahaan degan tahay in hormoonada soo saaro caanaha ay si wanaagsan u shaqeynayaan oo ayna caawinayso nasiinada ay samayso hooyada. sidoo kale hooyada inay hesho hurdo ku filan iyadana waxa ay ka mid tahay waxyaabaha soo saaro caanaha naaska. si lamid ah nuujinta, hooyada markasta ay dhalaankeeda nuujiso iyadana way kordhayaan caanaha, waayo maskaxda way la shaqeynaysaa dhalaanka nuugaya. mar walba hooyada ku badiso in ay dhalaankeeda nuujiso ay ku celceliso maalintii ugu yaraan 3 saacba mar ama 2 saac mar inay nuujiso iyadana waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ka qayb qaata soo saarista caano badan. in caanaha aad u listo dhalaanka waxaa ka wanaagsan in aad nuujiso, waayo markasta oo hooyada iyo dhalaanka jirkooda ay isgaaraan hormoonadii soo saaraya caanahana way shaqeynayaan oo shaqadooda zaid ayay noqonaysaa. taasna way caawinaysaa inay soo saaraan caano badan.
mar walba hooyo ku dadaal waxyaabo nafaqo leh inaad isticmaasho, fitamiino inaad isticmaasho oo supplement ah, kiniiniyaal oo diyaarsan. Sidoo kalena cuntooyinka aad isticmaalayso inay noqdaan cuntooyin nafaqo leh oo adigana ku caawinaya dhallaankaagana caawinaya. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad ka heshay like inoo saar, channelkana inoo share garee. mahadsanid.